maamulka Somaliland oo xilka ka qaaday madaxii sirdoonka iyo sidoo kale xilka qaadista lagu sameyn doono Nuux tani markii uu imaaday fashil aad u xoogan hogaankooda sidoo kale barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa maamulka Somaliland oo maagan in ciidamada ay ka soo galeen dhankaas Sanaag balse isii Khatum oo ka wareyshay ayaa waxa ay halkaas eegaysay ciidamadii u tirada badnaa kuwaasi oo ay doonayaan in haddii Somaliland iyo dhaqaaqaas ka bilowdo inay gudaha u galaan gobolada amaba qaybaha kale ee Sanaag ilaa Argagaw ay gaaraan waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa oo qayb ka noqon doono saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab oo laga qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan iyaga oo doonayo badda ayagoo mataqaanay ku socda xeebta badda una gudbi raba dhankaas iyo waliba Berbera ayaa gacanta lagu dhigay haddaba maxay tahay sababta barnaamijkeenan ayaan ku falanqeyn doonaa waxaan barnaamijkeena falanqeyn doono saaxiibkay Gooni oo inta badan uga barateen falanqeynta ku saabsan arrimahan Gooni markuu soo dhawo maxay ka dhigan tahay xilka qaadista lagu sameeyay madaxii sirdoonka iyo xaaladda degdega ah ee Soomaaliya la gelin rabo horta bidano ma santahay musabixi cabdi bariye la soo dhaafay fikir ay ku jiray wuxuuna qorsheenay qaabka wax u kala mareyn karo maadaama fashil uu ka soo gaaray dagaalkii bishii 25 Agoosto ee la galay ciidamada SSC Khatum marka qorshe fara badan oo isku shaandhayn ah ayuu go'aan ku gaaray waxaana ka mid noqotay in horta marka hore la cuno taliyada sirdoonka ninka lagu magacaabo Faisal Gohad Cabdi Gahir oo ah nin markaas beelaha kale ka soo jeeday ee Somaliland isagoo markaas xilkaas si awood qaybsi ku joogay hadda waxa loo magacaabo nin madaxweynaha ilmaadar yihiin oo lagu magacaabo Cabdi Sataar kaasoo markaas xilkan la wareegay taas marka waxay ka dhigan tahay in Nuux Taani oo taliyaha ciidamada xoogga Somaliland ah iyo ninka hadda la magacaabo Cabdi Sataar inay isku beel yihiin ay ka soo wada jeedaan beesha hawar awal arintaas marka aysan suuro gelinaynin awood qaybsiga xagga beelaha marka waxay ka dhigan tahay marka in Nuux Taani xilka laga qaadi doono maadaama fashilka oo halkaas ka dhashay ayadoo markaas la dareemayo in xaalad isbarbaryaac musabixi ay qabsatay inuu ku kalsoonaa waa sirdoonkiisii oo ku kalsoonaa waa taliyihiisa ciidamada xoogga oo ku kalsoonaa waa hoggaanka kale ee ciidamada hogaaminay kadib markii ay fashil u soo jiideen shalay iyo daraad waxaan sheegaynaa in saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliya la maxkamadeynay oo markaas howlgalkii ka dhacay Gooja Cade iyo la sacaanad ay ku fashilmeen taarikii ay damiyeen oo ceebti ka soo gaartay darteed loo maxkamadeynay hadda marka ciidamada wali ku dhex mashquulsan yahay wuxuuna qorsheenayaa in rag fara badan oo hadda saraakiil guutooyin oo xil ka qaado si isku shaandhayn weyn ugu sameeyo ciidamada marka xaaladdan degdega marka idan maxay gormay bilaaban maxay si ka bedeli doontaa mise barnaamijka loo horgeynaya waxay ka dhigan tahay marka in hadii maxaa la xaalad degdega in la geliyo isla bishan intaysan dhamaanin oo hadda bish 9 lagu jiro in gudaheeda ama dhamaadkeeda la soo geliyo xaalad degdega Somaliland si uu u guuleysto howlgalka ciidamada Soomaaliya ku qaadi rabaan maxay la sacaanood laakiin maxaa ku bedeli karaa xaalad degdega waxay ka bedeli kartaa horta isku socodka iyo waxyaabaha kale oo dhan ayaa la yareynaa waxa kale oo la yareynaa shaqooyinka la qabsan lahaayeen waxaana loo jiheynaa dagaalka taas macnaha hadda koor dowladda Soomaaliya xataa maray ku dhawaaqday oo rabtay in xaalad degdeg geliso wadanka si shabaab loola dagaalamo marka indhaha dhana waxa lagu jeedinaa in SSC Khatum taas ka dhigan tahay marka wuxuu rabay marka hore in maxaabiista la soo kala furto oo marka hore heshiis lagu dayo oo si farsamaysan ama maxaa la dhahaa oo helo maxaabiista ku helo ciidamada baran oo mataqaanay ka imaadaan aad qorshihii marka uu suurageli waayay SSC Khatum waxay sheegtay inaysan wax maxaabiista hadda sii deynaynin maadaama qorshaha hadda oo socdo oo wali dagaal uu yahay SSC ay dagaal u diyaar garowday Soomaaliya dagaal u diyaar garowday ma jirto fikir maxaabiis looga hadli karo arinta marka waxay keentay Muuse inuu candufsi dib u laqo maxaabiistu xiran inuu dagaal galo waata sheegnay in Faisal Cabdi Batal la soo daayo oo markaas la xado xabsiga laga xado isku dayay oo fashilmay marka si walba Muuse uu rafanay hadda ugu dambeyn waxa uu soo baxday inuu dagaal qaado wadankan xaalad degdeg geliyo gaar ahaan Soomaaliya gudaheeda kadibna dagaalka iyo howlgelinta ay u bilaabato si loo soo afjaro ciidamada SSC Khatum sidoo asagoo hadal ku dhigay sheegayna inuu tagi doono xuduudka Garowe si markaas kadib wixii wada hadal ah iyo markaas waan ah saas loogu bilaabato hadii ay taas suurageli weysana asaga ayaa markaas meesha ka bixi doono oo ceebtii weyneed oo mar labaad ay soo gaari doontaa lagana yaabo in xilkiisa uu ku waayo Musabixi Cabdi Soomaaliya waxa la yiri ciidamada u tirada badnaa waxay keenaysaa dhankan iyo Sanaag maadaama markay fiiriyeen dhankan ciidamada aad ku tirada badan ee SSC ay u baaxdigi waayeen marka ay sidoo marka dhan kale bal u jihaya dagaal Somaliland markii dhankan og iyo goori iyo marka dhankaas ciidamo fara badan ay keeneen oo markaas waxay arkeen ciidamada SSC Khatum halkaas keentay inay ciidamo aad u tiro badan marka waxay raadinaysaa meel dulduleel ah oo SSC Khatum aysan aad ugu banaan ciidamadeeda waxay noqotay gobolka Sanaag
dhanka iyo cerigaab iyo meelo kale ay ciidamo ka soo geliyeen ayaga markaas dhanka SSC u soo jeeyay marka waxay rabaan dagaalka inay wajiyo badan u yeelaan si loo fashiliyo halganka ama difaac ciidamada SSC ay ku jiraan si loo fashiliyo wajiyo badan dagaalka in loo yeelo gobolka Sanaag laga furo gobolka Sool laga furo si markaas maxaa gobolka Ceen laga furo si markaas SSC qaato ciidamada la dhaho ma qaybsami karaan ama jahwareer ku jiraan laakiin SSC waxaan ka fikirtay ciidamadii beelaha hartay ciidamadii dhamaan SSC qaato waa la isku daray meel fiican ayaa la geeyay waana la qaybiyay kaasho howlgal wanaagsan ay ku jiraan aad waa maasan tahay bal aan tagana kaas Muqdisho waxa soo baxay xog sheegayo in saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab waliba haweenkooda carruurtoodii watay inay dhanka Somaliland inay u socdeen la qabto kaasho bari la soo dhaafay howlgalka ayaa socday waati loo midoobay la dagaalanka ururka al-shabaab madaxweynaha waa soo gaaray maxaas markaas lagu wada hadal oo la galay beelaha halkaas degan oo beesha xaal lagu horeyso cali jeetay iyo beelaha halkaas degan oo heshiiyeen beesha afgaal oo tagay ayuu wax isku afgarteen dagaalkii la soo afjaro waxa aan wixii madooba meesha laga saaro waxa kale jiro beesha habar gidir ay ku laabtay shalay magaalada Dhuusamareeb kadibna waxay ku heshiiyeen in macawisleeda mushaar la siiyo hadhowna laga dhigay ciidamada deegaanka ah oo booliis ah ayagana markaas si caadi loo heshiiyay marka heshiis saddex geesood oo ka dhacay waxa la yiraahdaa Soomaalida gudaheeda ayaa waxa fashilinaya la dagaalanka ururka al-shabaab ay kula jiraan dawladda ayaa fashil ku imaanaya shabaabku marka waxay bilaabeen inay qaxaan bilaabeen qolo walba meeshii ay ka soo jeedo iyo meesha u baxsan karto inay aadaan sax marka warku waxay sheegaan niman ka tagay Jubbooyinka iyo meelahan inay doon ka qaateen kadibna ay rabeen dhanka iyo Berbera ay tagaan ay halkaas markan meelaha ay ka soo jeedaan ay ahayd marka isku dayga ay sameeyeen magaalada Muqdisho ayay yimaadeen ninkii marka dad xeebaha ilaaliyo ayaa arkay oo waxay sheegaan in maxay raadiyay halkaas ay niman shabaab ay marayaan xaasaskooda carruurtooda wataan kadibna waxa la yiraahdaa nimankan doontii shidaal inuu ka go'aa laga yaabay andigada tagno kadibna shidaal aan qaadano markay soo leexdeenna way arkeen ciidamada markay arkeen carar ay bilaabeen markay cararayna laba doona laga daba diray ugu dambeyntii gacanta lagu soo dhigay ayagoo jaabeesan ayaana dekada laga soo dajiyay kadibna waxa loo qaaday xabsiga dhexe si markaas loo xaqiijiyo ama qaabka yihiin iyo sida ku socdeen maadaama carruurtooda iyo haweenkooda ay wateen la ogaaday markaas inay shabaab yihiin baaritaanka ay ku socdo xarunta markii xabsiga dhex la geeyay kadibna bari waxa la geyn doonaa xarunta CID-da baaritaan dheer iyo wada hadal kadib ayaa la ogaan doonaa oo kala shaandeen doonaa waana dhowr iyo 10 nin ay gaarayaan ragaani waa rag waaweyn sida wararku sheegayaan laakiin soo isma dhigi karo warqadii ka soo baxay Somaliland caawa ay leedahay SSC ba la keenay ama keensatay niman argagixisa in ay ku qarinayso raggaas farada badan gaaraya xaqooda haade waxarta in argagixisada hadii la dhaho SSC argagixiso shaqo kuma lahan oo la yaqaana meesha deegaanadaasi laakiin Somaliland ayada argagixisada fangareyso sida xogaha nagu soo garay horena si hore u sheegtay adnaadan adnaadan inta badan ba musabixi loo ogyahay sida sababta loo geeyay shaqada sunne waa inuu bedelo Ameerika xanuunsan inuu bedelo waay marka waxa wala la socdaa Somaliland waxaan ayada fangareyso marka nin waxa arkay oo maxal la shabaab aha oo darad shalay lagu dilay meesha la yiraahdo deegaanadan galmudug oo ninkaasi cusweyn ayaan dhaxas inta ka soo hadlay sheegay markaas inuu weerar maxal yiraahdaa oo ku yihiin dawladda isla ayaga dhaxdooda iska dileen markay iska dileen kadib waxa go'aan ku gaaray waxay ku gaareen in maxal yiraahdaa ninkaas la soo qabto ninka Ameerika la dilay waxay ka dhigeen inuu yahay nin maxal yiraahdaa shabaab ah oo SSC ka soo jeedo marka xilligan inshallah shabaab u ahay haddana qaatumo ay markaas u gal rabo arinta marka waxay keenaysaa dhibaato muran weyn ayadoo markaas la sheegay in hadda SSC qaatumo arintaasi ka madax banaan tahay ciidamo aad u fara badan oo la sheegay in shabaabku inay wateen ay halkaas ku fashilmeen dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay in dagaalka si toos u gali doonto laakiin Soomaaliland inay iyadu shabaab tahay waa wax iska cad oo wax la wada ogyahay oo wax Soomaaliland ay la socoto hore u sheegteen marka ceeb ay ku qarnaan moogiye SSC wax shabaab jooga malan aad ma santay daawadeeltaas ku soo barnaamijkan muuqaalka sheegay saatina leh